رئيس وزراء دولة فدرالك Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta kulan la qaatay ismada dhaqanka Puntland. Kulanka uu raiisul wasaaruhu la qaatay ismada ay ugu warbixiyay xaaladda guud ee dalka uu marayo iyo marxaladda kala guurka doorashooyinka ku soo foolay dalka. Raiisul wasaare Rooble ayaa sidoo kale xalay kulamo la qaatay qaybaha kala duwan ee ururada bulshada rayidka ah ee Puntland iyagoo iska xog wareysay waxyaabo badan. runtii kulankan wuxuu ahaa kulanka labaad oo Muqdisho aan kulan hore ku soo yeelanay. haddana kulankan wuxuu ahaa kulan bulshada rayidka ah Puntland ay la kulantay raiisul wasaaraha kulan aad u qiimo badan qalbi furan si fiican oo noogu waramay annaguna dareenkan qabna oo xilliga doorashada Soomaaliya iyo walaaca haya bulshada rayidka ahayd si fiican soo afgaranay waxaana soo u jeedinay talooyinkeena ku aadan waxyaabaha la isku hayo doorashooyinka in xal laga gaaro raiisul wasaaraha ballan wuxuu noo qaaday inuu qaybtiisa geysan doono haddana wuxuu u socday ay tahay inuu xal laga gaaro runtii aad ugu faraxsanahay wuxuu noogu waramay si waafi ah oo aan dhihi karno si aan siyaasadaysnayn annaguna wixii aragtideena aan ku biirinay waxaan rajaynaynaa in qof walba Soomaali ah baaqna halkan ka dareena in siyaasiyiinta Soomaalida dhammaan ay qayb ka qaataan hawsha doorashada oo u ah ubuc walaac badan dadka Soomaalida ka hayaan in la isu tanaasulo in jiha loo furo arrinta doorashada in xal Soomaaliyeedna la gaaro doorashadana xilligeeda ay ku dhacdo ayna tahay wax laga heshiiyay ay noqoto waana u ismada dhaqanka ayaa dhankooda dardaaran u jeediyay raiisul wasaaraha iyo waftiga la socda maalmo kooban oo ku sugnaan doona Puntland gaar ahaan Garowe waxa uu kulamo la qaadan doona madaxda dawladda qaybaha kala duwan ee bulshada isagoo dhanka dawladda kala hadli doona sidii loo ambaqaadi lahaa heshiisyadii siyaasadeed ee hore loogu gaaray Dhuusamareeb iyo Muqdisho. Cabdishakuur Yaasiin Aadan wararka Hon Cable Garowe. ma ogtahay macmiil in shirkadda Somtal ay ku daafurtay wejigii labaad ee abaalmarinta 5,000 ee hadiyado taasoo ay ku jiraan 10 baabuur oo cusub oo Hyundai ah mobaylo talaagado qasaalado tablets dhammaantood baa shirkadda Samsung dahab iyo dalxiis hotelada damala ayaa kugu jirta hadiyadaha iyo sidoo kale accounts dahabshiil ah oo ay lacag kugu jirto haddaba si aad uga mid noqotid guulaystayaasha fadlan si joogto ah u isticmaal adeegyada Somtal sida ku hadalka internetka iyo adeega casriga ee e-dahab markasta oo aad isticmaashid adeegyada kala duwan ee shirkadda Somtel waxaad fursad u helaysaa in eheladaada iyo asxaabtaada ay ku codeeyaan bil kastana toddobaadka u dambeeya waxa uu serverka Somtel uu soo xuli doonaa kontonka macmiil ee ugu codka badan leh ee u gudbi doona wareegga labaad tusaale ahaan macmiil gal qaybta fariimaha ee telefonkaaga kadibna geli telefonka qofka aad doonaysid inaad u codeysid adigoo u diraya lambarka 5,000 waxaad ugu diri kartaa si lacag la'aan ama bilaash wixii faahfaahintaasi dheer nagala soo xidhiid lambarka gaaban ee 333